dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkan oo ku saabsan taariikhda aasaasihii shirkadda Samsung. Waa mid ka mid ah ragga ganacsatada ee Koonfurta Kooriya ee ugu guushaya saameynta badnaa dhinaca ganacsiga ee qarnigii tagay. Lee Byung-chul waa ganacsadii ugu caansanaa adduunka, waxaana qoyskiisu ay noqdeen qoyska labaad ee ugu qanisan qaaradda Aasiya, kuwaasi oo nasiib u helay adduun lacageed oo dhan 40.8 bilyan oo dollarka Mareykanka ah sanadkii 2017. Sidaanu ka soo xiganayno majalada Forbes, waxaana lagu tiriyaa in uu ka mid yahay raggii sameeyay isla mar ahaantaasna saameeyay dhaqaalaha Koonfurta Kooriya, kuwaasi oo bixiya awood warshadeed iyo kobcinta shaqaalaysiinta dadka. Haddaba maanta waxaanu ka faaloonaynaa Byung-chul, aasaasihii shirkadda Samsung ee ballaaran. wuxuu ku dhashay Lee Byung-chul 12 Febraayo sanadkii 1910 Yoryong boqortooyada Kooriya, waxaana uu ahaa wiilka kaliya ee qoys hantiilayaal ahaa kuwaasi oo lahaa dhul aad u ballaaran. waxa ay uga tageen maalkaasi aadka u faraha badan, waxaana uu bilaabay jaamacadda Waseda University ee Tokyo, Japan, hase yeeshee ma uusan dhammaysan kadib markii uu geeriyooday aabihii. markii uu waxbarashada uu ka tagay oo uu dhaxlay aabihii, mashruucii ugu horreeyay ee uu hirgeliyo ayaa ahayd warshad shiida bariiska oo uu furtay. inkasta oo ganacsigan oo uu bilaabay noloshiisa uu u hibeeyay noloshiisa isla mar ahaantaasna noloshiisa uu ku tijaabinayay, haddana ma noqon mid guulaysta isla markaasna sameeya faa'iido la xusi karo. kadib guuldaradii ugu horreysay, Chul waxa uu ka sameeyay shirkad wax dhoofisa magaalada Diogo 1 Maarso sanadkii 1938, taasi oo loogu magac daray Samsung Trading Company ama shirkadda ganacsiga guud ee Samsung. Samsung ayaa ka kooban laba eray oo ah Sam oo ah tirada 3, taas oo ah lambar barakaysan sida ay u arkaan Kooriyiinta, waxaana uu ka dhigan yahay weynaan, qaninimo iyo awood. ereyga labaad oo ah Sung oo ah xidigo oo iyaguna ah kuwa ay barakaystaan oo ay aaminsan yihiin Kooriyiintu in ay keenaan ifka iyo nuurka. shirkaddu waxa ay dhoofin jirtay alaabo badan oo ay ka mid yihiin cuntooyinka sida khudaarta, kalluunka iyo miraha fruitka oo ay u iibgeyn jirtay gobollada Shiinaha. waxa shirkaddu ay u aragtay in faa'iido badan ay ka sameynaysay ganacsigan, waxaana uu Lee ku ballaariyay ganacsigiisa dalka Koonfurta Kooriya. sanadkii 1947 shirkadda waxaa loo bedelay magaalada Seoul ee dalka Koonfurta Kooriya. sanadkii 1947 shirkadda ganacsiga guud ee Samsung waxaa loo aqoonsaday in ay ka mid ahayd 10 shirkadood ee ugu awoodda badan uguna weyn waddanka Kooriya. hase yeeshee markan Chul waxaa soo food saartay dhibaato xoogan kadib markii uu qarxay dagaalkii labada Kooriya. Chul ayaa ku khasbanaaday in uu u raro shirkadiisa goob ka ammaansan, waxaana uu shirkadiisa u dejiyay magaalada Busan, halkaasi oo uu ku sugnaa ama ay ku sugnaayeen ciidamada Mareykanka ee garab taagnaa Kooriyiinta Koonfureed. markaas kadib Lee waxa uu ku fukaray in uu sameeyo warshad sifaysa sokorta, taasi oo uu arkayay fikrad ganacsi oo hirgeli karta. kadib markii uu dhammaaday dagaalkii labada Kooriya, waxaa mar kale hirgalay warshad samaysa suufka sanadkii 1954, taasi oo uu sameeyay Lee Chul. ganacsiga Lee Chul oo sii ballaaranayay waxa uu ku daray dhowr dhinac oo u horseeday in uu sii kobco dhaqaalihiisa. waxa uu ku daray maaliyadda, bangiyada, caymiska, iibka alaabada tafaariikhda ah iyo shirkado dhinaca amniga ah oo ilaaliya bangiyada iyo goobaha kale ee dowladda. Chul waxa uu si xoog ah u aaminsanaa warshadaha iyo warshadaynta, isaga oo aad u daneynayay in Samsung Group ay noqoto mid dhinac walba oo ganacsiga ah hogaamisa. Samsung waxa ay u jeeysatay dhinaca qalabka danabaysan ee electronicska bartamihii 60meeyadii. waxa ay hirgelisay TV-gii ugu horreeyay ee madow iyo caddaan ahaa, isla markaasna bartamihii 60meeyadii waxa ay Samsung lahayd 6 waaxood oo soo saara qalabka semiconductorska ama aaladaha gudbiye xigeenka ah
ee ay ku shaqeeyaan raadiyaasha TV-yada telefoonada iyo wixii la mid ah sidoo kale lixda waaxood waxaa ka mid ahaa qayb ku howlanayd wax soo saarka isgaarsiinta iyo hardware-ka sanadkii 1980kii Samsung waxa ay hanatay shirkadda Hankook Johnston Townsend oo ahayd shirkad soo saarta qalabka isgaarsiinta waxaana markaasi ay ahayd markii ay Samsung ay ka qayb gooni noqotay ama ay ka madax bannaanaatay Samsung Group waxaana ay yeelatay Samsung Electronics Company Limited waxaana ay soo saartay cadad aad u mug weyn oo telefoonno ah sidoo kale mashiinada fakisyada iyo qalbyada aadka u faraha badan ee electronicska iyo isgaarsiinta loo adeegsado waxaana kuwaasi ay ku harqiyeen Samsung suuqyada caalamka oo markaas u hamuun qabay tiknoolajiyada cusub mulkiilaha Samsung ayaa geeriyooday sanadkii 1987 hase yeeshee fikradihiisii horumarineed ee shirkadda ayaa ku sii talax tagay siina hirgeliyay himilooyinkiisii waxa ay xarumo fara badan ay ka fureen New York, Texas iyo London iyo waliba magaalooyin aad u fara badan oo adduunka ku yaala kuwaasi oo ay ku nool yihiin malaayiin dad waaxda dhismaha ee Samsung Construction waxa ay ka qayb qaateen sidoo kale dhismaha Burj Khalifa Malaysia Samsung waxay noqotay sanadkii 1992 kambaniga hogaaminaya soo saaridda kaarka xasuusta ah oo xogta lagu kaydsado ee memory cardka iyadoo markii dambana ay noqotay shirkadda labaad taas oo booska koowaad gashay kambaniga Intel sanadkii 1995 Samsung ayaa soo saartay TV-gii ugu horeeyay ee LCD taas oo hormarisay kacdoonkii warshadaha ee TV-yada Samsung waxa ay noqotay wax soo saarka dakhliga wadanka Koonfurta Korea sanadka 2012 guud ahaanba 15% sanadkaasi waxa ay soo xareeyeen dakhli dhan 265 bilyan oo dollarka Mareykanka ah halka ay ka heshay faa'iido ahaan 26 bilyan oo dollar dadka u shaqeeya Samsung ayaa lagu qiyaasay 425 oo qof waxaana ay siisaa mushahar ahaan mid ay ku qanacsan yihiin oo ka badan kuwa shirkadaha kale ay bixiyaan intaasi waxaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan oo ku saabsan qayb ka mid ah taariikhaha oo aanu ku soo qaadano wadan ama shakhsi ka mid ah shakhsiyada adduunka ugu saameynta badan haddaba dhageyse daawade waxaanu idinka codsanaynaa in aad sii faafisaan muuqaaladeenna isla mar ahaantaasna aad nagala qayb qaadataan inaanu sii gaarsiino dad aad u fara badan xogaha ku saabsan mowduucyo muhiim u ah horumarka iyo ilbaxnimada caalamka oo dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin in laga qabtiro